waxaan horta Asma Ismail Abdirahman Hassan oo TV-ga MMT oo soo daayay oo warar fara badan laga faafiyay oo bulshada maanta social media haysata adeerkeed baan ahay inantaasi Asma walaalkay baa dhalay anigii weyn yar aad fiican bay ahayd oo si wanaagsan soo kortay aniguna aad u jeclaa beeda oo jecel waxna bay ahayd inantaasi waalidkoodii ba kala tagay haddana yar faafayo say ku kala tageen waalidkaas maadaama xogaal ahaa oo la aalay oo isku daaradna wada naalay walaalkay anu waxay ku kala tageen waxay ahayd si loo ogaado bal cidda qaladkii meesha ka yimid loo fahmo waxay ku kala tageen ama khilaaf ka dhashay gabadha walaalkay qaba waxay soo dhigtay inuu magaaladan ka harta sheekha ka raro oo ay Hargeysa u guurto oo Hargeysa inta joogay looga iibiyo guriga looga dhiso walaalkayna wuxuu yiraahdo anu diyaarta shaqaan hay Itoobiya deganahay Hargeysa shaqada daaradna ku jagana ku meelihi guriyana ku meelihi awoodan ku dhisto guriyo Hargeysa ku sameeyay meelihi walaal halkan harta shaqaynu ku nuucaysanahay oo barqa ku jirnaa halka walaal digra ku hayno insha Allah taala halkeena inoo daabo ku yiri gabadh marka way ku adkaysatay iyadoo inay markaa Hargeysa loo raro in mudaan hadalkaasi isku celintaas way socotay aakhirkii markii ugu dambeysay gabadhi go'aan bay gaadhay isagoo odaygu ka maqan xaafadda oo meherada shaqada ku maqan aroor ay tahay ay gaari shambe soo kaxaysatay aqalkii iyo carruurtii way ratay guriga kali waxa kaga tagtay hooyadii ba joogtay lixdii carruurta ahayd iyo aqalkiiba wixii yaalay iyo guriga mooyantii kale hoos u dhaway ratay carruurtii lixdii way qaadatay Hargeysa tagtay markaas walaalkay markaa wuxuu soo hoyday isagoo qadadii xaafadda yimiday xaafadda laga guuray oo hooyadii kale ka joogto hooyadii markaa u sheegtay reerku gooray maanad ogeyn wuxuu ilmaan ogeyn amay guurtaa way guurtay leeyahay markaa way harkii markaa iska aamusay hadal damay lama yeelan waxbana maarta kama daba hadal mudiirka markaa naga maqnayd intuu dhowr iyo 10 cisho aan 20 bil gaadhaynin ayay soo noqotay iyadoo afar ciyaal wata afar ciyaal xaafadii albaabka hor joojisay may soo galin guriga laakiin afar ciyaalka guriga hor joojisay ayay soo guriga gala iyadoo way ka noqotay afar ciyaal ee guriga hor joojiyay asma ku jirtay wala laba hablood asma ku jirto iyo laba inuu weeyaan afarta weey asma markaa mid ba ka yar midyada ka yar mid ugu weynaa laba Hargeysa ka timid asma iyo laba inoo ka weyn saddex ay tayaro kala oo iyadana markaa asma ka weyn ay afartaas xaafadda keentay guriga hor joojisay way ka noqotay markaa meeyta waxay tagtay xaafadda magaalada qaxbad kamid markaa tagtay kadib markii walaalkay uu soo hoyday oo qadadii hadda yimid wuxuu ugu yimid afar ciyaal xaafadda jooga iyo markaa gurigii deetar ciyaalkii iska joogeen saddex cisho markii magaalada sii joogtay ay haddana aroorta maxarub soo kala xaafadda timid gabadhi soo ka maqayay shaqada ku maqayay afarta mid kamid ah inana ay la noqotay waa asma ku weyn ay la noqotay oo Hargeysa u qaadatay oo labadii kale ku darsatay marka wax ku haray meeshii laba inamood iyo asma ku haray saddex marka odayga ayaa soo koriyay oo hayay oo madrasada ku daray oo waxbaray oo maartay asma quraanka way dhameystay way xiftaa xafid quraan asma waxay sheegtay in waalidkeedu dayaceen labada dhinacba waliba habeen madow oo idinku ka soo saartay sidoo kale adigu noo sheegaysana waxa leedahay asma bixidda loo keenay iyada oo yar marka asma may noqotay dhibaatada ay sheegayso goorma la kulantay dhibaatada waxay la kulantay hooyada markii noo keentay ay keentay hooyada ay ka noqotay ka tagtay de muddo badan bay abeed la joogtay way ku weynaatay wax baratay oo quraanka baratay xifdadooyin badan joogtay iyadoo marka dhowr iyo 10 jir gabadh weyn ay marka anaga tagtay hooyadii baan u tagay arkisan tagay hooyada baan u tagay yaaba ma iska joogtay ma waan tagay way tagtay marka hooyada u tagtay hooyada ma soo dhaweyn hooyada soo celisay wax ku tidhi aabaha ku noqo deetana marka wala soo way soo noqotay noo timid waxay tii hooyada u tagay waxay tii iska noqo way maratay ma golaan la joogo wuxuu ku markaa beediga iska joogo halkan ba wax barasho waad keenaysaa iskuulka ku dhigan kartaa madrasada ku haysataa waa wax loo jeedaa halkan iska joog xabaa ku noqon iska daa asmadaba ay gan yarnahayd magaalada Hargeysa soo aragtay harti magaalada uma noqonin waxay tiraahdaa ma way noqonaya way noqotay adoo la saddex jeer la afar jeer ay mar soo noqonayso hooyada u tagayso ka soo noqonayso maraan u soo noqonayso markii dambe u dambeeyay afar goor kadib Hargeysa way ka noqotay hooyada uma tagin gabadhan maadan qarabada oo magaalada degan oo maalmahan ay u tagtay iyada markaa la joogtay arrintan kadib asma ma la xiriideen oo ma ogtihiin ma soo weydiisan sababta ku kaliftay ما شاء الله والله حرني إمك وانا هي عدك ذاك يفرض دبتي والله حرنا كل أدر واد أبوك سكري حافظ القرآن بعد هيد ولا جاور هي
hargeysa kiinaba la joogtay maalin xilli qumad waanu sheegay waan ku joonaa la hadlay maxaa ku kale baan ku maxay yaday inaad waxa sheegto oo waxay ku tiraadeen codkii uu dumay maadaama aan qashin kara waxay ku tiraadeen aabay waxba kama sheegin bayt aabay ma ceebeen waxba kama sheegin bayt waa runta bayt uu soo koriyay bayt laakiin wixii jira baan sheegay bayt iyadoo ka wada macnaha hooyadii wixii jira ma aabay iman aad sheegay maxaan ka leeyahay bay ugu tamiyay ayay tiri waxaan ku adeer hadii hore hooyada ku xumaysay waa waalid xaq buu kugu leeyahay marka in kasta ku xukumayo ma ku fogeeyo isagu halkii waalidnimadu ku halkii bay taagan tahay iska taa hooyada muslim hooyada gaalada ayaa la xiriiraya baan ku yiri oo maarta xaq ugu leh oo la fogeeyo gaalnimo lagu eriyay marka waan la hadlay idan way la soo hadashay inama kalan walaan ahayn waa la hadleen habla inama yada walaadnimada way la hadleen dibadii dalba laga soo hadlay anagana waa naga soo hadlay waxa leeyahay maxay waxaan ku adeer waan tagay maxaa talaabada raaci mise maxaa haysa marka waxaan igu tiri insha Allah waan imanayaa adeer ana ka dambeeyay iska tagaado si fiican way soo bixisay $100 way siisay oo kharashkii ka dhigay igu tiri way soo bixisay waan ka markaasi asu marka aan waan ka imid yar bay iga dambeysay laakiin anaga harta nagu ma imanay laakiin hargeysa tagtay hargeysa marka tagtay marka haddana waxa uu tagtay inantii markaan baa u joogtay inantaas markay muddo la joogay iskuul baa lagu daray iskuul bay dhiganeysay xaafadana way joogtay muddo dhowr sano markaa la joogtay iyadoo xaafadii markaa la joogtay anigu aan ka warhayno marba nala soo hadho adeer iska waran yaa iska war oo la wada xiriirayo ay markii dambana waxa uu yeedhay inan kale oo iyada maadariyiin anigu walaalkayga igu weyn soo dhalay hargeysa lagu qabo yaa u yeedhay gabadhii markii dambe la joogtay ayay la joogtaan ku ogin markasta anu hargeysa tagi jiray oo maartay meherad baan u safri jiray markasta aan tagana iyada aan u tagi jiro intan markii la garaaco iyo imin jirtay waan arki jiray oo waan wada xiriir jiray oo joognay inanta dambe markaa aan adeerka markaan aniga adeerka iyada meerkii hibe markaa iskala joogtay aabaheedna markaa waxbuu kolba kharash waxay u baahatay dhar haday noqoto waxba iyuu tolba u diri jiray marka aan la soo xiriir jirtay markii aabo ku yar baato aan ay oran jirtay aabo waxbaan uga baahnay iga soo qaad deetana aan markaa aabanta Allah aan ku jiray keen waxba u baahantay waan uga qaadi jiray qorqorna aniga gaar ahaanba waxa ugu diri jiray markaa u siin jiray marka gabadhii markay saa ahayd maalintii muddo kadib waxaan arkay iyadoo haddana shaqaynayso oo taarkiistii igu tiri habadhii inaan waan ka tegay hablaha saaxiibnimo la galay la jooga madrasada waan dhigaa oo marka macallimad bay ahayd ma ay dhigis marka madrasada dhigaysa oo dhinacna ka baratay iyadoo dhinacna iyadoo wax ka dhigaysa mushaar lacagna qaadata ayaa marka anagu aan kan ayaan ku ogeyn deetana marka gabadhaasi asma leeyahay simiga harka loo dhigayo hal habeen may arag silic may arag dhibaato may arag gidaarka may soo toosi doox may arag gabadh mar walba reer ku tirsan oo qarabadeeduna iyo dad saxaabteeduna oo aabeedka warhayo oo aan ka warhayno oo dadkii laga warhayaan ayuun bay hargeysa waxay ku noqotay hooyadu ma tegin gabadhan maadno qarabada oo magaalada degan oo maalmahan ay u tagtay iyada marka la joogtay muddo marka la joogtay xogaa marka la joogtay asma way ka tagtay ilaa Djibouti bay tagtay Djibouti markay tagtay aman maqalay gabadha waxay tagtay Djibouti ana Djibouti markay tagtay anoo ijtimaaca Djibouti ana ka qayb galayo u saarintaas Djibouti way timar yaa ka daba tagay oo anoo markaa ijtimaaca Djibouti ka qayb galayaan iyadana warkeed hayay deetana waan raadiyay markaa Djibouti ka dhaxraadiyay gabadhii waxaan deedayaa markii dambe gabadhan maarnay baan arkay gabadhii baan weydiiyay inta ma aragtay waxay tiri ana arkay guri baan shaqeeyay xafad bay ka shaqeynaysaa xafad ana garanay bit waxaan ku dhigay way gaxway ka xasay gabadhii markan hayd guriga ka shaqeynayay baygiis asmo markaa aad u qurux badan oo guri wanaagsan xafad wanaagsan ay joogto oo ay jecel yihiin caruurna lahayn xafadaan caruurnaysan ay joogto deetana markaa gabadhii aad u naxdo aad qurux badan ayay xafadii ugu tagtay xafad aniga way soo dhaweysay ma adeerka baa tahay adeerka baan haytay afsanaga door bidna la joogtay de ma sha Allah soo dhaw guriga baan la markii lagu soo dhaway marka aan guriga habeenka maan hooyeen waan ka tagay laakiin aruurtan ku soo noqday waxaan ku adeer waan tagay de maxaa talaabada raaci mise maxaa haysa marka waxaan igu tiri insha Allah waan imanayaa adeer ana ka dambeeyay iska tagaado si fiican way soo bixisay $100 way siisay oo kharashkii ka dhigay igu tiri way soo bixisay waan ka marka waxa kale oo sheegaya oo bulshada sheegaya dadku way kala tagaan laakiin hadday kala tagaan haddana awla markay ka dhaxayso ma kala kala tagsanaba qalad kala ama waa hooyaan noqoto ama baa noqdo qalad waa ka iman kara oo qof waa bilaad weeya waxaan u sheegay insha Allah ta'ala in asma iyada waxaan ku leeyahay inay maartay hooyadeed weeyi inay maartay ay hay'aday marna meeda ka tigmayso inay hooyadeed ay raali geliso ama la hadasho dadkooda la xiriidho oo maartay waxba dhibaana ay arag waxaasi oo in marna waalidkii beelkii ugu baan sheegi lahaa bulshada kale waxaan sheegi lahaa warka horta in dadka TV-da warkan iska qabsan baan sheegi lahaa TV-ga waxaan sheegi lahaa warku sheegay wax xaqi waa inuu yahay qof kasta ku yimaado wada wareysato wuxuu sheegay inaad ogeyn caalamka beentaasi gaadhaysa maanta social media kala sheega beentii uu fududeeyay
والنبي وحده عليه الصلاه والسلام markii nabiga la dheelmay عليه الصلاه والسلام waxa nabiga la sii mariyay nin qadaadka u jiifo kalbad xadiida lagu jaxayaa oo xaqan lagu jaxay markii nabiga uu weydiiyay malag mujibin wuxuu ku yiri waa nin beentu sheegi jirtay caalamka ay gaari jirtay dawaaga tifina ma jirin hadana maanta waxaad u malaynaysaa tifiga maanta war aan hubin sheega caalamka daqiiq bay ku gaaraysaa marka waxa la tifiyadana waxaan u sheegayaa inay warka ay sheegaan iska hubsadaan haddii ay u timaadaan xaqiiqada ogaadaan oo cidii marka waxaan ka soo filayay ay wareystaan oo iyaga xaq ka gaarabay asma kale ka warin tifiga wareysanay de haddana uu naga soo xiriiro ama ilka la xiriiro si wax jirin baa loo sheegi lahaa laakiin inay dadka iska bombooniyaan oo iska fidiyaan laga wanaagsan yahay waxaas dhinna waxa keenay waxa weeye dadkeen way sii fidinayaan midab uu sii dhiibaya warka saas ugu faafaya marka waxaan la warka iska hubsada tifiyada iyo dadka wax sheegaya iyo dadka kale marka sii gudbinayaba war waxa sheegayna iska hubsada la kacabta lagu daraan oo la shaaro